in qofka bani aadamka ah uu gacantiisa isku dilo waa dembi aad u weyn oo ka mid ah dembiyada waaweyn ee kabaa'irta ah, kuwaasoo uu inaga reebay rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam, oo rabbigeennuna subxaanahu wa tacaala qofkii sameeya u ballan qaaday cadaab aad u xanuun badan. maxaa yeelay waxay taasi muujinaysaa daciiftinimada iimaanka iyo diinyarida, balse waxaa geerida ka dambeeya ciqaab iyo isla xisaabtan iyo qabriga iyo mugdigiisa iyo siraadka iyo simbiriraxadiisa. kadibna wuxuu qofku ku dambaynayaa naar ama janno midkooda. alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala: walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima waman yafcal dalika cudwaanan wadulman fasawfa nusliihi naara wakaana dalika cala allahi yasiira. qaarkiin yaysan dilin qaarka kale oo naftiinana ha halaagina. allena subxaanahu wa tacaala waa mid idinkugu naxariis badan wax walba oo uu idin faray iyo wax walba oo uu idinka reebay. qofkii isagoo dulmi iyo xadgudub ay ka tahay ku dhaca waxyaabahaas uu alle subxaanahu wa tacaala ka reebayna, wuxuu alle subxaanahu wa tacaala gelin doonaa naar kuleel badan oo uu dhedhemin doono kuleelkeeda. arrinkaasuna waa mid alle subxaanahu wa tacaala aad ugu fudud. walaa tulquu biaydiikum ila tahluka, gacmihiina halaag ha isku gelinina. in qofku uu gacantiisa isku dilo sharciyan waa mid xaaraan ah, maxaa yeelay wuxuu qofku gacantiisa uga takhallusayaa noloshiisii uu alle subxaanahu wa tacaala siiyey oo ku amray in uu ilaaliyo. wuxuuna qofka isdila noqonayaa mid ku xadgudbay ammaanadii uu alle subxaanahu wa tacaala u dhiibay ka hor inta uusan naftiisa ku xadgudbin oo uusan dulminin. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. wuxuu abi hurayra radiyallaahu canhu nabiga sallallahu calayhi wasallam ka wariyey in uu yidhi: qofkii buur iska tuuro oo naftiisa sidaas ku dilo wuxuu isku tuuri doonaa oo uu ku dildilloon doonaa naarta jahannamo dhexdeeda, isagoona weligiisa halkaas ku waari doonaa. waman taxassaa summan faqatala nafsah fasummuhu fii yadih yataxassaahu fii naari jahannam khaalidan mukhalladan fiiha abada. qofkii sun cabo oo sidaas naftiisa ku dilana isagoo suntiisa gacanta ku wata ayuu ku dhex cabi doonaa naarta jahannamo dhexdeeda, isagoona weligiisa halkaas ku waari doonaa. waman qatala nafsahu bixadiidatin faxadiidatuhu fii yadih yaja'u biha fii batnih fii naari jahannama khaalidan mukhalladan fiiha abada. qofkii naftiisa bir ku dilana isagoo birtiisa gacanta ku wata ayuu caloosha iska gelgelin doonaa oo isku mudmudi doonaa naarta jahannamo dhexdeeda, isagoona weligiisa halkaas ku waaraya. wuxuu qofka bani aadamka ah maalinka qiyaamaha la imaan doonaa wixii uu naftiisa ku dilay, markaas baa naarta jahannamo lagu tuurayaa isagoona halkaas loogu cadaabi doono. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. wuxuu ثابت بن الضحاك رضي الله عنه nabiga عليه الصلاة والسلام ka wariyey in uu yidhi: qofkii markuu adduunyo joogo naftiisa shay ku dila, shaygaas ayaa maalinka qiyaamaha lagu cadaabi doonaa. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خنق نفسه في الدنيا فقتلها خنق نفسه في النار، ومن طعن نفسه طعنها في النار، ومن اقتحم فقتل نفسه اقتحم في النار. wuxuu abi hurayra radiyallaahu canhu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka wariyey in uu yidhi: qofkii naftiisa adduunyada isku daldala oo sidaas ku dhinta wuxuu naftiisa ku daldali doonaa naarta dhexdeeda. qofkii naftiisa dura ama toorri geliya oo sidaas isku dilana wuxuu naftiisa ku duri doonaa naarta dhexdeeda. taasi waa ciqaabta uu leeyahay qofkii naftiisa dila, walciyaadu billaah.
intixaarku ama in qofku uu naftiisa dilo waxaa ku sugan caro alle subxaanahu wa tacaala oo aad u daran iyo cadaab aad u kulul oo qiyaamaha la cadaabi doono. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحا أبي هريرة رضي الله عنه لقوريي إن أويري شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وحان دقالكي خيبر لجوغني رسولكي ألي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام markaas buu wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin ka mid ahaa dadkii isaga la socday ee islaamnimada sheeganayay ka yidhi haadaa min ahli nnaar, ninkan aad arkaysaan wuxuu ka mid yahay ahlunnaarka. falammaa xadara alqitaal, goobtii dagaalka markii la gaaray oo muslimiinta iyo yahuuddu iska hor yimaadeen, qaatala alrajulu min ashaddi alqitaal, ninkii ayaa wuxuu dagaalamay dagaalamid aad u daran. وكثرت به الجراح فأثبتته إلا dhaawacyadii ay aad ugu bateen oo uu isdhaqaajin kari waayay fakaada bacdu nnaasi yartaab, oo dadkii qaarkood ay ka shakiyeen nabiga sala allahu calayhi wasalam hadalkiisii in uu run yahay. fawajada alrajulu alama aljiraaxa, ninkii ayaa wuxuu aad ugu xanuunsaday dhaawacyadii soo gaaray. فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه. markaas buu kinaanadiisii oo ay leebabka ama fallaaruhu ugu jireen intuu gacanta ku laacay fallaar ka soo baxsaday, kadibna wuxuu ku gowracay oo uu ku dilay naftiisa. فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك. kadibna rag ka mid ahaa muslimiinta ayaa intay nabiga sala allahu calayhi wasalama u soo carareen waxay ku yidhaahdeen rasuulkii ilaahayow alle waa uu rumeeyey hadalkaagii, intaxara fulaanun faqatala nafsah, hebel intixaar ayuu sameeyey oo naftiisa ayuu gacantiisa ku dilay. فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. markaas buu wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa bilaal kac oo dadka ugu naadi oo u sheeg in jannada uusan gelaynin qof aanan mu'min ahayn, wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala haddii uu doono diinta ku ayidaanin faajir ah. sidoo kale waxaa la wariyaa in uu nin isdilay xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo kadibna uu alle subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa ku yidhi baadaranii cabdii binafsih xaramtu calayhi aljanna. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala xaaraantinimeeyey in si xaqdarro ah naf lagu gooyo, bani aadamkuna xaq uma lahaan in ay ku tasarrufaan. intixaarku ama isdiliddu waxay daliil u tahay iimaan yarida iyo ka fogaanshaha dariiqa alle subxaanahu wa tacaala. wuxuuna rasuulku sala allahu calayhi wasalama ka tagay inuu ku tukado qof naftiisa dilay si cuquubo looga dhigo oo dadka kale ay ka waantoobaan in ay sameeyaan ficilkiisa oo kale, wuxuuse dadka kale u oggolaaday in ay ku tukadaan. عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. waxaa nabiga sala allahu calayhi wasalama loo keenay nin naftiisa fallaar isku dilay, kadibna nebigu kuma uusan tukan calayhi salaatu wassalaam. nebigu sala allahu calayhi wasalama naf ahaantiisa kuma uusan tukanin canaan uu dadka kale uga canaananayay in ay sameeyaan ficilkiisa oo kale, waxaase ku tukaday saxaabada ridwaanullaahi calayhim. balse qofka isdila ma kaafir baa oo naarta miyuu ku waarayaa, mase lagu tukanayaa janaasadiisa, mase lagu aasayaa qabuuraha muslimiinta, mise laguma aasayo. muntaxirka ama qofka isdila lama gaalaysiinayo sida ay qabaan imaamyada afarta ah, maxaa yeelay kufrigu waa in la inkiro oo laga baxo diinta islaamka. intixaarku wuxuu ka mid yahay dembiyada ugu foosha xun oo uguna waaweyn, balse ahlu sunnati waljamaaca agtooda kaafir kama noqdo haddii uu ahaa qof muslim ah oo tukanaya oo islaamnimo lagu yaqaanay.
islaamnimadana loogama saarayo haddii uu xilligaas ka hor muslim ahaan jiray. gaalnimona kuma sheegayno, balse waxaan arrinkiisa u daynaynaa alle subxaanahu wa tacaala. wuxuuna ku hoos jiraa alle subxaanahu wa tacaala doonistiisa, si la mid ah dadkii kale ee alle ku caasiyey subxaanahu wa tacaala. alle subxaanahu wa tacaala haddii uu doono wuxuu naarta ku cadaabayaa qadar la eg jariimadii uu ku dhintay, taasoo ah dilka. haddii uu doonana waa uu cafiyaa subxaanahu wa tacaala, oo hoosta kama xariiqayno in uu naarta ku waarayo. waxaana xadiiska lagu xambaarayaa sida ay yidhaahdaan culimmada qaarkood oo ah, qofka intixaarka isagoo og inuu xaaraan yahay xalaalshada oo ku dhaqaaqa inuu kaafir yahay ama inuu naarta ku waarayo, waxaa loola jeedaa muddada dheer ee uu qofka isdilay ku sugnaanayo naarta dhexdeeda, ee loolama jeedo waarid abadi ah. wallaahu aclamu bisawaab. qofka muslimka ah ee isdila waxaa lagula dhaqmayaa axkaamta janaasooyinka muslimiinta ah. waa la dhaqayaa, waa la karfanayaa, waana lagu tukanayaa, waxaana lagu aasayaa qabuuraha muslimiinta. maalkiisana waa la dhaxlayaa, waana loo naxariisanayaa, waxaana loogu ducaynayaa dembidhaafka iyo naxariista alle subxaanahu wa tacaala. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.